maamulka gobolka Sool iyo laamaha amniga ayaa ka hadlay kooxo baastoolada ku habaysan aan hoybtooda la aqoon kuwaas oo dhaawacay soo gaarsiiyay 3 ruux oo midtaay haweeney waxayna sheegeen inay wadaan baaritaan la xiriira falkaasi dadna ay u soo qabqabteen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sool iyo booliska ayaa ku dhaliilay shacabka inay ka gaabiyeen kala shaqeynta booliska arrimaha nabadgelyada waxayna ugu baaqeen shacabka inay kala shaqeeyaan amniga magaalada waxa ka dhacay shil baa ka dhacay hal saacad markay ahayd 6 iyo ilaa 20 qiyaasta dable hubaysan ayaa waxay soo weerareen niman meherad fadhiyay waxaana u geysteen dhaawac halisa laba nin baa la dhaawacay iyo gabadh baa howlgalka falka lagu dhaawacay niman dable oo dhalinyaro hubaysan oo baastoolad ku hubaysan ayaa weeraray ciidankuna dee markaa hawshan uu ku jiray suuqana uu ku jiray oo kulli xaalad baa dee magaalada ka jirtay oo ay dugeydeen horta boolisku qof ma gaaro dadka boolisku waa in yar oo bulshada ka soo dhex baxday oo iyagu amniga way jirtaa dee amniga way xilsaaran yihiin laakiin meel walba ma joogaan ama magaalada ha ahaato ama magaalooyinka kale ha ahaato ama deegaamada kale ha ahaato ee gobolka ka mid ah wax badan waxbay ka qabteen falal badan bay ku guuleysteen oo qabteen gacan ku dhiglayaal badan bay qabteen qaybo aan lagu guuleysanin way jiraan laakiin waxaan is leeyahay ama tabeelaha aad carabka ku dhufatay ahaato ama tan ahaatee hawsha inta badan waxaa iskale ilaa tan aan sheegayo dadka deegaanka kulley labada dhacday waxaan laba dhacdo oo isku waqti dhacay ha ahaadeen laba dhacdo oo wajiyo kala duwan leh oo meelo gaar ah ka kala dhacay dhacdada laascaanood gudaheeda ka dhacday dhacday bay ahayd lagu dhaawacay 3 qof labada nin iyo gabadha ayna fuliyeen dhagarqabayaashii dadkii la oran jiray sida anagu aan aaminsanahay maadaama ay ahaayeen dhalinyaro ku hubaysan baastoolada kulley booliskuna howlgal buu sameeyay dad badan waa la soo xiray baaritaankana waa socda bismillaah kariim rajadana waxa ay ma taqaanaa warbixinta ama jawaabta cadna waxa la helayaa saacadaha soo socda oo laamihii dabagalka iyo baaridda gacanta ku haysa dhacdada kalena waxa ay dhacday iyada waqtiga abaaraha shalay galab 6 maqrib meelaha waxayna ka dhacday meel la yiraahdo dabdheer una dhaxaysa kala bayd dibataag iyo meesha la ma taqaanaa dhumay iyaduna waa dagaalkii qabaa'ilka koonfurta Sool ka socday wuxuu baa ku dhintay isna halka qofna waa ku dhaawamay kulli hawsha ay laftigeedu ciidamada qaranka ayaa aaga jira iyagana waxay ku maqan yihiin howlgalkiisii lagu soo qaban lahaa gacan ku dhiglihii ciidanka biliisku maaha tirada dadka shacabka magaalada joogta ma leeka marka hore waa koow marka labaadna calaawado ama calaamad taqaan albaab uma qaybsamin istaago marka saddexaadna shacabka magaalada ku noolaa haddii aan ciidanka biliiska iyo laamaha amniga aan la shaqeynin oo aan kala shaqeynin inay wixii ay arkaan soo sheegaan oo aan kala shaqeynin markii wax la qabtay inay marqaatiga furaan oo aan kala shaqeynin inay wixii wax dilay ay qabtaan lama oran karo waan ku fashan anigu in yar oo kamid ah dadka ayaana ama aanu boolis noqono ama aanu noqono ma taqaan laamaha amniga aan noqono in yar oo dad kamid ahna Soomaaliya waxa ku maamulaa tuug kula yaala tabtaada ma waayo qofka waxaan sameeynaya waa tuug dhuumanaya wuxuu sameeyaa waqti yar oo kooban oo ciidankii biliiska ama roondadii wareegaysa ay meesha banayso buu ka faa'iideysanaya laakiin dhaliisha ugu badan waxa iska leh shacabka magaalada jooga iska leh dadkan samada kama yimaadeen guryaha degan yihiin guryaha laga kireeyaa qofku markuu wax dilo gurigu galaya markuu magaalada yimaado gurigu ku soo degaya qof magaalada ku joogo ku xiran yahay haddii aan markaa dadka aan la shaqeynin maamulka aan la shaqeynin lama oran karo damaal ku dheelinaya mudooyinkii u dambeysay waxaa ku soo laabanaya magaalada Laascaanood dilalka qorsheysan oo lagu bartilmaameedsanayo haldoorka bulshada walow maamulka gobolka iyo booliskuba wadaan howlgallo lagu sugayo ammaanka magaalada Laascaanood Mawlid Cali Star TV Laascaanood